dadkii waalehen ahaa oo lagu xasuuqay maalintii sabtida ahayd oo waxba galabsan oo gacanka xaq daran ay dishay oo isugu jiray hooyo aabe caruur dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba oo waxba galabsan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii jannadiisii walaalahood qaraabadooda asxaabtooda iyo eheladooda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeedna inuu samir iimaan ilaahay ka siiyo waxaan leeyahay dadka ku dhaawacmay inuu ilaahay ka kiciyo sida ugu dhaqsiyaha badan uuna ilaahay u fududeeyo waxaan leeyahay dadkii dhintay waxay ahaayeen mujaahidiin waxay ahaayeen dad shahaaday ahaayeen allah u naxariisto waxaan mar kale leeyahay inaan u ducayno oo aan faatixad u marno oo qof walba halkan fadhiya uu u maro faatixada bismi illaahi raxmaan iraxiim faatixadaan u marno inuu ilaahay jannadiisii naxariista siiyo waxaan rabaa inaan halkan aan dardaaran idinkaga soo gudbiyo waxaan leeyahay dhibaatooyin badan iyo musiibooyin badan yaa dalkan ku habsaday muddo dheerna aan ku jirnay dhibaatooyinkaas waxaa qayb ka ah inaan ka fogaanno ilaahay inaan ilaahay ka fogaannay naxariistiisii inaan annaga isku naxariisan weynay inaan iscafin weynay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuuna cafiyo kulligeenba ilaahay aan dib ugu noqonno oo aan weyddiisanno cafis annagana aan iscafinno wixii dhacayna aan ilowno ummadda soomaaliyeed waa dad waala ah haddii aan la gaarin inaan iscafinno haddii aan la gaarin inaan ilaahay cafis weyddiisanno musiibadan iyo dhibaatadan way soconaysaa sidaas darteed aan dib ilaahay ugu noqonno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ilaahaygiina abuuray oo halkan maanta isugu keenay oo quluubteennii isu soo dhoweeyey intaanoo qofoo soomaali ah iyo meel kasta ay soomaali joogto maanta quluubtoodii waa isu dhowda quluubtoodii ilaahay waa isu soo dhoweeyey wuxuu ilaahay quluubtooda isugu soo dhoweeyey inaan aragnay cadowgeenna inaan diyaar u nahay inaan cadowgeenna la dagaalno waxaa ilaahay qulubta isugu soo dhoweeyey inaad dawladdiina difaacdaan inaad oggolaataan inaan iscafinno waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo qayb libaaxa ka noqday oo isugu soo baxay oo gargaaray walaalahoodii la xasuuqay oo dhiigga u shubay oo gacanaya ciidamada qalabka sida oo meydkii iyo dhaawacii wax ka guray ilaahay taasaa caddaynaysa ummadda soomaaliyeed inuu qalbigooda isugu soo dhoweeyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sida iyo doorkay ka qaateen waxaad tihiin ilaa hadda inay weli shaqaynayaan oo ay ammaanka ilaalinayaan oo ay aruuriyeen intii dhaawac ahaa iyo intii dhibatay daarihii dumay ee kulli ka dulqaadeen wixii meed ahaa waxaana ilaahay u rajaynayaa ilaahay inuu guuleeyo waa ognahay waa geesiyiin waxaan u mahad celinayaa hay-adihii caafimaadka oo ilaa hadda weli shaqaynaya oo ku mashquulsan sidii dadkii dhaawaca ahaa oo aan waxba galabsan ay daawadoodii iyo taakulayntoodii ay ugu mashquulsan yihiin waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradii ka qayb gashay gurmidka qaranka oo isu raadinaya dadka waalaha ahaa oo kala maqnaa oo habeen iyo maalin taleefanka ag fadhiyey oo la soo wada wacay si ay u xaqiijiyaan inta dhimatay iyo inta nool iyo inta dhaawaca ugu dambaystii aan u mahad celinayaa dawladaha saaxiibbadaan nahay doorkii ay ka qaateen gargaarkii degdega ah ay na soo gaarsiiyeen diyaaradihii ay soo direen daawooyinka ahaa dhaawicii ay qaadeen kullii waxaan u sheegayaa ilaahay inuu ajar ka siiyo soomaaliyana iloobi mayso waana u abaalgudaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kulli dawladihiaan saaxiibka ahayn oo gacanta ka geysta hawshaas
waxaan rabaa inaan xusuusiyo oo xusid mudan oo taariikhda qoraysa October 14 ama 14 October maalin madow oo ummadda Soomaaliyeed xusuusan doonto 100 sano muddo hadda loo socdo oo aan ku xasuusan doonno sida aan uga jawaabno si aad uga jawaabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay uga jawaabaan dhibaatada dhacday xasuuqaas ummadda Soomaaliyeed geystay shabaab falkaas xun oo ay sameeyeen sidii aan uga jawaabi lahayn waxa weeye waa wax dhalaan soo socda ay akhrisan doonaan oo taariikhda ku qormi doonta waxaan aaminsanahay inaan si degdeg uga jawaabi doono sidii dhalinyaradii hore ay uga jawaabeen dhibaatooyinkii dalku soo maray musiibadan dhacday waxay ahayd dhibaato culus oo kuligeen nagu weyn waxaan ku bedelaynaa musiibadan marka waxaan ku bedelaynaa midnimo iyo wadaniyad ku bedelaynaa musiibadan waxaan ku bedelaynaa dhibkan midnimo iyo wadaniyad waxaana koow ka ah oo aan doonaynaa inay u kacaan oo loo kaco ay u kacaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay u kacaan sidii dhalinyaradii hore Soomaaliyeed ay ugu kaceen dhibaatooyinkii la soo maray dalkan soo maray waxaan ognahay oo qormaysa October 14 wixii dhacay inay ka turjumayso wixii hore loo soo maray inayna ka jawaabin oo ay shabaab geysteen shabaab marka ka dambaysa waxay u socdaan inay yiraahdaan intii hore aan dilnay ka badan inaan dilno way waxay bilaabeen 10 inay dilaan waxay ku xujiyeen 20 waxay ku xujiyeen 100 waxay hadda maraysaa 300 oo qof oo Soomaali ah waxba galabsan yay maraysaa waxay ka bilaabeen say ogtihiin hoteelada inay weeraraan oo hoteelada qarxiyaan waxay ogtihiin shaamow qarxi ka dhacay oo ay ku laayeen arday aan waxba galabsan oo mustaqbalkii Soomaaliya waxay ku laayeen dhalinyaradii dhibkaan ka shaqeyn lahayd oo daaweyn lahayd wixii maanta dhacay oo dhaqaatiir ahaa iyo meesha ku laayeen waxay qorshaysteen in dadka Soomaaliyeed aysan lahaan dhaqaatiir mutacaalimiin aysan lahaanin aysan lahaan hal door aysan lahaanin qof u kacay inuusan jirin waa looga aamusay loogama jawaabin waxa ku xigtay hargaha saamaha dhalinyaradii yararka ahaa oo dawladda Turkiga ay siisay waxbarashada inay maalin cad sidaas oo kale ay u xasuuqeen oo laayeen war maxay galabsadeen dhalinyaradan mutacaalimiintan maxay galabsadeen yararka oo mustaqbalka leh oo dalkooda u adeegay maxay galabsadeen macnaheedu ma aha waxay rabaan maalinta dambe intaan in leeg inay laayaan ilaa markuu ugu dambaysa Soomaaliya ay tirtiraan walaalayaal haddii aynan ka jawaabin arrinta maanta dhacday dhibaatadan way badanaysaa wayna sii soconaysaa ilaa aan hilbaheena ka arursano dhulka ilaa hilbaheena dhulka laga arursado oo la kala garan waayo qofka uu yahay moodul qaadaysaa sidaas war ma yeelaysaan mas'uulina shabaab ilaa ayna dhameeyaan waxaan idin sheegayaa dhalinyaro idinkaa laga rabaa inaad jawaabtaan marka waxaad ugu jawaabaysaan sidii dhalinyaradii ka horeysay ee ugu jawaabeen dhibaatooyinkii la soo maray aan ka bilaabo waqtigii xorriyadoonkan ka bilaabo waqtigii gumaysigan ka bilaabo gumaysigu soo galay Afrika soo galay waqtigii gumaysigu Soomaaliya soo galay aan ka bilaabo dhalinyaradu maxay u jawaabeen waxay u jawaabeen gumaysigu wuxuu bilaabay inuu xasuuqo dadka inuu xasuuqo gumaysigu wuxuu bilaabay dadka inuu qabjabiyo gumaysigu wuxuu bilaabay dadkeena inuu quursado gumaysigu wuxuu bilaabay dadka inuu gun ka dhigo dhalinyaradii waa diiday dhalinyaradii ma ogolaanin waxay noqdeen wax dhiig u daadiya waxay noqdeen wax dhib u dhinta waxay noqdeen wax dhaqaale u bixiya u noqdeen maanta taariikh la akhristay noqotay taariikh la akhristo dhalinyaradii SYL-ka ahaa oo dalka xoreeyay oo dalka Soomaaliya mideeyay waxay noqotay taariikh maanta la akhristo idinka 100 sano soo socda maxaa idinka akhrinaya dhalinyaro waxaa la rabaa idinka akhristo maanta inaad kacdaan
maanta inaad ummadda u kacdaan sidaasoo kale oo aad dhiiggiina aad u hubaysaan aad u dhimataan dalkiinna aad dalkiina dhisataan way waxa ummadda Soomaaliyeed